su'aal kale waxay ku saabsan tahay ruuxa sooma oo aan salaadda tukan soonkiisu ma asaxaya? jawaabtu waxay tahay ruuxa markaa salaadda aan tukan haddii markaa waxa weeye uu gaal yahay dee gaal soonkiisu asixi maayo, gaal soonkiisu ma asaxayo. laakiin haddii la yidhaahdo qowlka culammada odhanaysa qofka aan salaadda tukan haddii salaaddii waajibnimadeedii aanu dafirayn oo uu qirsan yahay salaaddu inay waajib ku tahay, ha yeeshee salaaddii uu markaa wahsi iyo caajis uga tegey iyo waxaan cudurdaar u noqonayn inuu kaga mashquulay, laakiin uu iscanaananayo oo uu leeyahay waxa weeye intaa tukaan isleeyahay oo uu markaa salaaddii waajibnimadeedii qirsan yahay, jamaahiirta culammadu waxay leeyihin milladda kama bixin oo ma gaaloobin oo diintii bilkulliya ugama bixin, ee wuxuu ka mid yahay min afsaqi alfaasiqiin, dadka faasiqiinta ah kuwa ugu fisqiga xun ayuu ka mid yahay. dadka faasiqiinta ee muslimiinta ah kuwa ugu fisqiga xun buu ka mid yahay. calaa haada markuu sidaasna lagu socdo oo la yidhaahdo salaaddii waajibnimadeedii ma dafirsana, ruuxa aan salaadda waajibnimadeeda dafirinna gaal ma aho milladdii kama bixin bilkulliya, soonkii uu soomay wuxuu noqonayaa waajibkii waa ka dhacayaa oo dembigiisana waa leeyahay, yacnii ajarkiisana waa leeyahay. oo waxay noqonaysaa ajarkii inuu ka nuqsaamo waa dhacdaa, laakiin calaa kulli xaal faralku waa ka dhacaya. hadduu laba waajib ruuxu midna la yimaado midna ka tago, kuu markaa la yimi waa yeelanayaa, yacnii kii uu ka tegayna dembigiisii waa saaran yahay.